gogashaan iyo gobol kaleba waa loo baahan yahay waxa shaki awsan ku jirin ummaddu waxay leedahay dad reserve ah oo markii ay la isu yaabo kala soo baxsho oo mar walba aan ayagu fagaaraha taagnayn marka shirku inuu maanta shirka duubabka yahay waa marxabeeyayna waana soo dhaweynayna idinaada ugu mahadsantii garashadii intaas kadib shirku wuxuu ujeedadiisu tahay in dadka Soomaaliyeed meelay joogaanba lagu wacyi geliyo wixii dagaalamayna dagaalkaas lagu damiyo baaq nabadeed loo jeediyo qaasatan Soomaaliya maanta masiirkeedii wuxuu gacanta ugu jiraa sidaad ogtihiin 7 qofood hadda ku shiraysa teendada Fisooli marka 7daas qofood waxaan rabnaa inaan anoo ku hadlaya afka duubabka inaan baaq u jeedino dhaana war ummadda Soomaaliyeed ama badbaadiya ama bi'iya labadaas unbay mid noqonaysa waxaad maanta samaysaan oo meesha ka soo saartaan wax yar ma ama waa la eedayaa ama waa la mahadinayaa marka waxaan Ilaahay ka magan galeynaa taladii la eedo iyo shirki la eedo inuu soo noqon oo kii ummadda badbaadiyo noqdo duubabku way dadaalkoodu waxaan is leeyahay xooggiisu hadda uu bilowday waana xilli aad loogu baahi badan yahay wax badan noogu gaxsanay waxaan marka ugu baaqaynaa baash inay janjalka ku dhagaan taagsiga faraha badan lana xoogaa inay dhimaan maxaa yeelay saad ogtihiinba wanaaga waa lagu eedoobaa xumaantana waa lagu eedoobaa marka ummadda Soomaaliyeed aad u gala warar xoogan oo waxaan isleenahay warkiinu way ka culus yihiin wararka kale oo la sheego shararka laga sheego ku dhiirada inuu warkiinu noqdo mid xal keeni kara ummaduna mahadiso idinkana dowr shariifa aad ku yeelataan bulshada maanta iyo ummadda Soomaaliyeed aad moodaa inay aad wax uga qaldan yihiin marka aniga saasan ku soo gaabinaya